Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaanu nahnay Marcade Technologies. Waxaanu doonayaa maanta in aan inla wadaago saaxiibayaal sheekooyin ka kooban oo ku saabsan burcadda internetka iyo maxay ahayd dhibaatooyinka ay u geystaan dadka. Sheekadani waxa ay ku saabsan tahay koox burcad ah oo internetka ka xaday lacag 10 milyan oo dollar ah. Burcadani internetka waxa ay ku hadlayeen luqadda Ruushka. Waxay u dhaceen bangiyo Ruushka ku yaalo Britain iyo Mareykanka. Kooxda lacagta xaday oo adeegsanaya kaarar ayaa qarashka kala baxay meelaha lacagta bangiyada lagala baxo ee lagu magacaabo ATM-yada sida lagu sheegay warbixin la soo saaray. Sidoo kale waxay xadeen warqado tiknoolajiyad oo ay leeyihiin 200 oo bangi oo ku yaala Mareykanka iyo Latin America. Warqadaha ay xadeen waxay u adeegsan karaan weeraro internetka oo mustaqbalka ku qaadaan bangiyadaasi sida warbixinta ku xusan. Ururka amniga internetka ee Group IB ee baaritaanka sameeyay wuxuu la shaqeeyay booliiska Yurub iyo dowladda Ruushka intii uu socday dabagalka. Kevin Karan waa qabiir madax bannaan oo ka shaqeeya amniga internetka. Wuxuu sheegay in weerarada ay xilligan aad u sii adkaanayaan. Dhinaca marka laga eego way dhameystiran yihiin ayuu u sheegay BBC-da. Waxay awoodaan in hanaanka kombiyuutarada ay dhex galaan kadibna la baxaan dhammaan warqadaha caddeynaya sida bangiyada u shaqeeyaan. Taasi waxay siinaysaa fursad ay ku sameeyaan qaabab been abuur ah oo lacag ay ku helaan. Group IB waxay warbixinta soo saartay waxay burcadda ugu yeertay money tracker kadib markii sida la sheegay virus ay adeegsadeen ku xadeen 500 oo kun oo dollar 16 weerar gudahood oo ay la eegteen shirkadaha Mareykanka. Sidoo kale 3 weerar oo tan iyo bishii May 2016 ku qaadeen 3 bangi oo Ruushka ku yaalo waxay ka xadeen 1.2 milyan oo dollar. Baabi'inta dabagalka. Kooxda burcadda internetka waxay iska ilaaliyaan in la dabagalo ayagoo si joogto ah u bedelayo qalabka iyo xeeladaha ay adeegsadaan. Waxay baabi'inayaan meelaha laga dabagali karo kadib markii ay dhammaan howlgalkooda dhameystaan qalabkii way baabi'inayaan sida lagu qoray warbixinta Group IB. Weerarka ugu horeeyay ee burcadda waxay ku baabi'iyeen shabakad First Data Star oo ah meel ay adeegsadeen ilaa 5,000 oo bangi. yacni First Data Star waxaa adeegsato 5,000 oo bangi halkaasay maxay ahayd ku baabiyeen waxaa la footprintina ahaa markii aan qaadanayna korsageena ethical hacking-ka ah ayaan ku soo qaadanay footprintina waa dabagal yacni tuug soo ma jirin waagi hore oo tuug caga weyn la dhihi jiray oo asagoo dacs la'aan ah maxay ahayd dadka u soo dhaco uu ninkaas asagoo dacs la'aan ama kaba la'aan u soo dhaca wuxuu ugu talagalay yacni kabuhu maxay ahayd wuxuu dhiganaa meel aad u fog asagoo dacs la'aan ku soo galaya markuu waxaad ka qaatana kabiisi u tagaa yacni raadkii raacaysa qof dacs la'aan u raacaysid markii dambe waxaa arkay raadkii dacs la'aanta ah oo baaba'ay sababtoo ah waxaa arkaysaa qof kaba wato oo kaliya marka waxaas waxa lagu magacaabaa footprintina lahaa marka 5,000 oo bangi meel isticmaalaan oo First Data Center la ahaa halkaas ay ku baabi'iyeen. Burcadda waxay meesha ka saareen ama kordhiyeen xadidda lacagta lagala bixi karo bangiyada marka la adeegsanayo kaararka ATM-yada. yacni saa ogsoonahay bangi kasta wuxuu leeyahay policy u gaar ah. yacni badanaa hadda bangiyada Soomaaliya ATM-kan ka hadlayaa $1,000 ka badan lagalama bixi karo badanaa bangiyada Soomaaliya ku yaalo maalintii macnaa birthday yacni akoonkaada $1,000 ka badan lama bixi kartid marka ayaga waxay suubiyeen inay siyaadiyeen yacni wax bay ku dareen yacni tusaale meesha 1,000 lagala bixi karay maalintii waxay ka dhigeen in la bixi karo $10,000 oo dollar si ay lacagtii waxay rabaan ayagu ay ula baxaan. Sidoo kale waxay bedeleen qaabab badan oo bangiyada ku shaqeeyaan. Mid ka mid ah weerarada kooxda waxay jabsadeen kombiyuutarka madaxa bangi si ay u dhex galaan hanaanka kale ee gudaha bangiga sida warbixinta lagu sheegay. Haddii khubaro ay ku soo weeraraan way adag tahay in laga hortago ayuu yiri Prof Karen said way adkeysan karaan ilaa ay dhex galaan kombiyuutarkaaga. صاحبي الخير بدنا إن رجينا sidoo kale waxaanu sii ziyaadin doonaa insha Allah tacaala waxaan soo deyn doonaa adiga baryahan cashirkeeni koorsadeeni taxanaha ahayd ee lagu magacaabo ethical hacking haddana waxaan soo qaadanay laba koorso
cashirka koowaad oo aan ku baranay waxa lagu magacaabo Kali Linux, cashirka labaad oo aan ku baranay HBN3. insha Allah tacaala cashirka saddexaad isbuucan dhexdiisa haddii aan soo deynin ama isbuuca dambe ayaan soo deyn doonaa insha Allah tacaala hadduu ilaah yiraahdo. saaxiibayaal waxaanu inga codsanayaa inaad subscribe noo saartaan channelkeena si aad ugu mid noqoto saaxiibada sida lacag la'aanta ah ku helo casharada aan halkan aan kusoo gudbinno. khayr badan aan in rajeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.